gabadhaani waxay go'aan ku soo qaadanaysaa inay ka tagto wadankeeda tagtana wadan kale laakiin isla ma filaan mar xumaan aabaheeda kadibna xanaaqaysa inay ku soo cararaysaa isagu wuxuu isku dayay inuu qabto laakiin ayada ku soo farbaxsanaysa aad ayay ku soo cararaysaa gabadhaani ayadii aabeed bixi saarayeen markabkan kadibna waxay ku leeyahay meeshaas ka tuura degal ay soo dhawaanin isaguna wuxuu ku dhahay sidii kuma soo dhawaanay laakiin wuxuu isku dayay gabadh inuu badbaadiyo ayadana si xawli ay dhehaysa ay soo dhawaanin kadibna gabadh meeshaas ka tuuraysa aabaan meeshaas ku soo tuura waliban isagoo raba inuu badbaadiyo gabadhiisa ilaa gabadh si soo dhawaalinaysa soo gaarto jasiiradani markaas halkan ku qoraysa soo taasoo dhiganta hel sidoo kale gabadhan jasiiradan kaliya ay kuna gaajo ahaysa sidoo kale waxay u baahan tahay raashin cunto laakiin waxba ma helayso ugu dambeyn ayadoo iska socoto meeshan ay carfiso bataat kadibna soo baxsanaysa way cunaysaa markale gabadh waxay arkaysaa aabaheed jirkiisa oo dhintay kadibna googoy meesha ku ilmeynaysa waliban ayadoo dareemayso murugo gabadh in muddo halkan ku noolaanaysa waliba kaligeeda weyn la qabsanaysa nolosha meeshan waxay iska dawaalaysaa badan waliban ayadoo rabta in la caawiyo laakiin ma helayso cid caawisa gabadhii mar waliba waxay cuntaa xayawaanada nool ee badda jooga ilaa ugu dambeyn ay aragto daroonkan gabadhan wiligeed ma aysan arkin daroon sidoo kale waxay technology aragti mar ugu dambeys gabadha ku farxaysa aragti daroonka ninka ayaa wato kadibna gabadh waxay isku dayaysaa daroonka inay soo boorsato kadibna ku soo cararaysaa daroonka ilaa ugu dambeyn daroonka dhulkan ay ku soo rido walibana ayadoo qabanaysa kadibna ninka uu ku xanaaqay wuxuu isku dayay gabadh inuu dilo sababtoo waxay ka jubisay daroonkiisa muddo dheer kadib gabadha waxay aragtay nin soo cararaya markaas waxay dareemaysaa farxad isla markii ninka ay siinaysaa walibana ayadoo qof bini'aadam mar ugu dambeysay